kalfadhigii maanta golaha deegaanka ee magaalada Gabiley ay isugu yimaadeen ayay ku doorteen maayar cusub kadib markii xayiraada laga qaaday kalfadhigaasi oo 17 xubnood oo kamid ah golaha deegaanku ay ugu codeeyeen inuu maayar noqdo Axmed Maxamed Qaalib oo bedeli doona maayarkii hore ee kusiisimaha ahaa Marwo Khadra Xaaji Ismaaciil Yoonis Khadra Xaaji Geed sidoo kalena qaar ka tirsan xildhibaanada ayaa dareenkooda ka waramay waxaana kamid ah hadaladooda sida oo lagu doorto gudoomiyihii sharciga ahaa ee meesha fadhiisan lahaa waa Axmed Maxamed Qaalib 12 shalay meesha iskugu tagay si sharafta lahayn hawshu soo dhameynay wanaad ugu mahadnaqayo iyadoo dadka shaki aan jirin iyo hadal aan jirin iyo colaad aan jirin laga dhaadhiciyay oo la yiri golahaasi waxba kama soo baxayaan oo odayaashu ku hadaaqayeen oo haweenku ku hadaaqayeen oo dhalinyaradu ku hadaaqaysay oo la lahaa waa tuugtiba wadanka qabsatay tuugtibaana wadanka dhisaysa tuugtibaana wadanka wanaajinaysa tuugtibaana xaq u leh si kastaba ahaatee xildhibaanadan golaha deegaanka ee Gabiley ayaa in badan isu dayay sidii ay u dhalin lahaayeen isbedel kadib markii lagu soo maayarkii hore inuu lunsaday hanti qaran Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Ramas News Gabiley